Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa in salaamin dhammaan asxaabta kanaalkan ku xiran. Waxay soo gudbinayaa sonkor iyo ilmaha maxaa kala haysta. Subaxdii aad sonkorta ilmaha markay soo kacaan aad siisid, wuxuu yeelanayaa cunugii inuu erleji badan uu yeesho. Hadda markaa sokorta siinaysid orod badan inuu cunugii kaa fariisanayn, inuu cunugi boodboodaayo, inuu qaylinaayo, inuu wax jajabinaayo, inuu wax suubinaayo, waxle inuu qabtuu rabaa. Marka haddaad cashara ama wax baraysidna wax fahmada oo madaxiisa galaysaa malaha, waayo wixiisa waxaad erlejiga wax iskaga saaruu rabaa. Marka walaalayaal aan ku dadaalno sida ilmaha aan uga yareyn lahayn sonkorta, sababtoo ah wax dad aad u shaqeeya ma aha oo dhidid badan ka baxaya wadamadan oo aan joogno. Marka caafimaad ahaan ma fiicna, yar iyo weynba uma fiicna, laakiin ilmaha hadda meelo qaarkood oo xadaanooyinka lama ogola in ismariska ilmaha soo siiso wax macaan inuu soo qaataan, quraac soo qaataan waa laga diidayaa. Iskuulka kale maaha wixii iskuul u gaara ma waayo waxay diidayaan cunugaas maanta ku qayliyo, ku orordo, ku boodboodo. Marka aan ku dadaalno ilmaha waxaana tuuriska aan siino khudaarta, hadday rabno fahmadda ilmaheena inay fahmadoodu sii siyaado. Sonkortu waxay u siyaadinaysaa malaha waxaana cudur ahayn, laakiin aan ku dadaalno khudaarta, waxyaalo badan saliida aan ka yarayno. Inkastoo maanta aan sokorta soo qaadanay, insha Allah mar saliida waan soo qaadanayna hadduu Ilaahay eedba idmo. Marka walaalayaal sonkorta ilmaha aan ka yarayno, ilmuhu ka yaryahay sonkorta aan ka yarayno, waxaanan qalbi madoobaad, cudur, caajis badan marka dambe u yeelaysa. Markay sonkorta ka baxdo uu u boodboodayo, u qaylinayo, ayaa waxaan dhahaynaa ilmaheena Soomaalida waxay u badanaa u dhaxno war cunuga maxaa qayladeed cunugu igu qayliya ka dhiish waxaas ay akhrino. Waa cunuga aan subaxdii kusii quraacsiino shaah sonkor leh, caano sonkor leh, kulli war sonkor baa ka buuxda.